nin boqor ah oo ka tirin jiray boqortooyadii Roomaanka. Boqorkaas oo lagu magacaabi jiray Boqor Yunaan waxa uu ahaa boqor aad iyo aad u wanaagsan, hanti badanna iska leh, magacna ku dhex leh bulshada dhexdeeda, xukunkiisana uu ummadda dhan dhul badan gaaray. saasay tahay farxadiisii waxaa nusqaamiyey boqorkii. waxaa ku dhacay cudurkaas oo baras ahaa, kaas oo loo taag waayey. dhakhaatiirtii ka agdhoweedna ay ka quusteen in ay daaweeyaan. boqorkiina waxay ku noqotay arrin murugo leh. kadibna wuxuu iska galay gurigiisii isaga oo murugaysan. dadka la kulankoodiina waa uu ka cararay. magaaladii boqor Yunaan oo ka tirin jiray ayaa waxaa soo gaaray nin xakiim ah, caqli badan, daawada dhirtana wax ka yaqaano oo lagu magacaabi jiray Dunaan. markii magaalada uu soo gaaray ayaa mooyin oo joogay ayaa waxa uu maqlay arrinta boqorka iyo dhibaatada haysato iyo sida uu dadka uga cararay oo bulshadii magaalada ay ku sheegaysanayaan. kadib Dunaan waxa uu aaday in uu la kulmo boqorkii markii uu u tagay oo la sheekaystay oo ogaadayna xanuunka uu haya iyo daawadiisii ayuu waxa uu yiraahday, boqorow, aniga waxaan doonayaa in aan ku daaweeyo. boqorkiina waa uu yeelay, ileen horey ayaa waxaa loo yiraahday nin bukaa boqol u talisaye. boqorkiina waxa ku yiraahday, haddii aad daawooyinka taqaanid, xilliga aad rabtid ayaad bilaaban kartaa daaweyntaada. ninkiina waxa uu ku jawaabay, beri ayaan bilaabaynaa daawadeyna. waana uu iska tegay. waxa uu soo gurtay dhirtiisii iyo wixiisii ayuu soo habeystay. bahal kubad camal u ahna waa uu soo samaystay. waxa uuna u imaaday boqorkii maalinkii dambe. waxa uu ku yiraahday, maanta ayaan shaqadeena bilaabaynaa, inakeen waxaan aadaynaa dhulka bannaanka iyo xeebaha. boqorkii waa uu soo raacay, wasiiradiisiina waa uu soo watay. waxa uu dhiibay bahashii kubadda camal aheyd. wuxuu yiraahday, kubaddan maanta oo dhan waa inaad ku ciyaartaa ood ku dhedheeshaa oo gacantaada ku haysataa. kadib boqorkii bahashiisii ula orday marba oo sidii samayn lahaa buu u sameynayay. maalinkii galabtii waxa uu ku soo noqday gurigiisii. habeenkiina waxa uu ku seexday si nabad ah ayuu ku seexday. boqorkii subaxdii markii uu soo kacay waxa uu la yaabay waxa uu arkay arrin aad iyo aad u la cajabay oo noola yaabay, farxadna gelisay. oo wuxuu arkay xanuunkii hayay oo dhanba waa uu baaba'ay oo wax calaamad ah jirkiisa kama ay muuqato. dadkii oo dhanna arrintii ayay gaartay oo waa isgaarsiiyeen oo boqorkii waa uu fiicnaaday. dadkii ka agdhowaa boqorkana waa ay farxad gelisay oo boqorkii ayay farxaddii la qaybsanayeen. kadibna waxaa imaaday xakiimkii daaweeyey boqorkii. markii uu boqorkii ogaaday inuu caafimaaday aad ayuu asagana ugu farxay. boqorkii ninkii ayuu u mahad celiyey oo waa uu dhunkooday oo martiqaad aad iyo aad u weyn ayuu u sameeyey. waxauna yidhaah, dadka dhan ha loo sheego, maanta waxaan qabnaa xaflad. sidoo kale waxa uu siiyey hanti aad iyo aad u fara badan ayuu siiyey. waxa uuna yidhaahday, gurigiisa ha la geeyo. boqorka maalintaas wixii ka dambeeyey ninkii waxa uu hayay xurmad aad u weyn ayuu u hayay. waa uu soo dhaweystay oo agtiisa lagama weyn jirin. wax kasta oo talo ah ee ku soo kordhana waa uu la qaybsan jiray oo wuxuu weydiin jiray waxa laga sameynayo. boqorka dadkii ka agdhowaa kuwa xaasidiinta ahaa aad iyo aad ayay u necbaadeen oo ma aysan farxad gelin. waxaa jiray nin wasiir ah oo boqorka ka agdhowaan jiray, kaasoo ahaa nin aad iyo aad u baqiilsan, aadna xaasid u ah, aan arki karin waxaan isaga ahayn oo faraxsan. wuxuuna ka murgooday ninkan oo maalinba maalinta ka dambeysa boqorka agtiisa kusii weynaanayo. waxa uu yimaaday boqorkii. waxa uu ku yiraahday, boqorow, waxaan u jeedaa in aad qaldan tahay oo nin cadowgaaga ah hoostaada aad soo gashatay adiga oo doonayo in uu ku dilo. boqorkii ayaa yiraahday, waa maxay ninka aniga cadowgayga ah ee doonayo in uu dilo? wasiirkii ayaa u jawaabay boqorkii, ninka ku dili rabo waa xaakim Dunaan. boqorkii ayaa yiraahday, ma ninkii aniga i daaweeyey ah? wasiirkiina wuxuu ku jawaabay, haa, waa ninkaas. boqorkii ayaa yiraahday, ninkaas waa nin wanaagsan, wuu i daaweeyey asagoo waxba i cabsiinin ayuu i daaweeyey. laakiin wasiirka ayaa ku jawaabay, haa, waa runtaa, laakiin ninkii adoo wax cabitaan ah aan ku siinin, daawo aan ku cabsiinin
oo ku cunsiin ku daaweeyay taabashadeeda kaliya daabashadeedana waa uu kugu dili karaa anigu waxaan isleeyahay ninkan wax kale maaha waa nin ruufyaan ah naloo soo diray in uu annagana baabi'iyo boqorkiina waa uu ka diiday laakiin marar badan markii uu ku celshay boqorkii arrintii run ayay la noqotay oo wuxuu yiraahday waayahee sideen aan uga badbaadaynaa shartiisa laakiin wasiirkii ayaa yiraahday ninkan waxaan uga badbaadi karnaa hal mar u wac madaxana ka gooy asagoo dhan shartiisana halkaas ayay inooga haraysaa boqorkii arrintii ayuu la dhacay askartii ayuu u wacay waxa uuna ku yiraahday dunaan ii keena markii loo keenay ayuu waxa uu ku yiraahday ma dareensan tahay waxa aan kugu wacay waxa uu jawaabay maya laakiin agtaada waxaan ka rajaynayaa kheyr boqorkii ayaa u jawaabay waxaan kugu wacay in maanta madaxa laga gooyo ninkii ayaa u jawaabay boqorow maxaa dambi ah oon kalabsaday oon halleeyay oo la ii dilayaa boqorkii ayaa ugu jawaabay waxayna kaaga shakiynay in aad ruufyaan tahay oona dib noo soo wadid aanadna dili rabtid ninkii ayaa yiraahday boqorow aniga nin wanaagsan ayaan ahay wanaag ayaan kuu sameeyey adiga oo xanuun tacbaan la ah oo magaaladii dhan ka cararay ayaan ku daaweeyey abaalkayga waxa ay noqotay in la ii dilo boqorkii waxa uu yiraahday waa lama huraan in lagu dilo sababtoo ah waxaan doonaynaa in aan nafsadeena iyo boqortooyadeena ay nabadgelyo hesho ninkii markii uu ogaaday marnaba inaan la daayin doonin ayuu waxa uu ku jawaabay boqorow waayahee ii fasax in aan hal mar gurigayga gaaro oon hantidaydii kasoo dardaarmo soona kala qaybiyo halka buug asraartayda ku jirtana aan adiga hadiid ahaan kugu siiyo hadiidii u dambeysay sababtoo ah hadhowd markaa ay dishid madaxayga goysid madaxayga ayaa kula hadli doono madaxaygana wuxuu ka sheekeyn doonaa buugga sirta ku qoran qofkii haysta kaliya ayaana asraarta buuggaas ku qoran fahmi karo boqorkii ayaa yiraahday ma madaxaaga ayaa hadli doono haa wuu hadli doonaa oo 3 maalin ayuu ku sheekeyn doonaa buuggan aad haysatid wax kasta ku qoranna asaga ayaa ku sheegi doono boqorkii askartii ayuu ku daray ninkan gurigiisa geeyo howliisa soo dhameysto asaga iyo buuggana ii soo qaada kadib ninkii waa u baxay gurigiisa ayaa la geeyay buuggii uu sheegay ayuu soo qaaday wuxuu ku soo sameeyayba kadibna waxa loo soo celshay boqorkii buuggii bagii koowaad ayuu akhriyay wax qoraal ah kuma qorneen wuxuu ku jawaabay buuggan wax qoraal ah oo ku qoran ma leh waa waraaq cad ninkiina wuxuu ku yahaa waa sirta buugga ku jirto buugga dhan wada akhri kadibna marka ay dishay madaxayga ayaa kula hadli doono oo waraaq kasta oo cad oo had aad fiirisay oo wax aad ka weysay waxa dhowd ku qoran madaxayga ayaa ku sheegi doono muddo 7 bari ah qaado inta aanan idilin boqorkii arrintii ayuu yeelay oo marwa bag ayuu fiirinayay ninkiina waxaa loo soo celshay gurigiisii in uu sii joogo 7daas bari laakiin buugga waa uu sumaysnaa oo markuu dhowr maalin ba akhri boqorkii waa uu iska dhintay oo suntii ayaa saanka iyo afkaba ka gashay ninkiina sidii ayuu ku nabad galay oo cid kale dib u soo raacatayna ma leheen halkaas ayay qisadeena ay noogu dhamaatay haddaad qisadeena aad ka heshay fadlan subscribe adigu wax kuma dhibeyso annagana waxaan ka helaynaa dhiirigelin وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.